raalliga ahaana waxaad moodaa dadku inuu yar caajisay anigoo ku hadlaya magaca jabhadda wadaniga xoreynta ogaden dhammaantiin waan idin wada salaamay gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa isimada aqoon-yahanka waxgaradka haweenka iyo dhammaan dadka reedoollo oo idil gaar ahaan degmadan aynu joogno anigu waxaan ka mid ahay qolyaha fanka iyo sugaanta waad yar caajisteen marka bal waan xoogaa nin reer bari ah yaa damcay inuu diinta faafiyo dabeedna wuxuu raacay tabliiqii markuu raacay abwaankii baan ku dayanhayaa show ninka waa bilowlaba garweynna waa leeyahay khamiisna wuu qabaa hadda wuxuu ku bilaabay marka sicii dadka wacdiyaa layidhi maanta waa maalinkaagii bismillaahi raxmaan raxiim buu yidhi hadda waa iska garan kadhaayoo jannihii cadaab baa jidha haddaad dadaasho waa lagu jannaynahayaa haddaad dadaali weydana waa lagu cadaanahayaa saada cali waxay tidhi nin waliba wuxuu maalin geystuu leeyahay haddii axmed cali ciyaalla waa kiil ahaa haddaad nolosha qawadaan nabadgalay ahaa jira horta ninkaa odayga wuxuu wax alla xigmada o dhan buu dhamaystiray waxa weeyaan annagu horta halkan waxaanu idinku nimid nin waliba wuxuu horta noo geystay iyo wax wanaaga uu noo geysta maanta unbuu helahayaa waa tii saada cali taasi allah u naxariistay haajirna waanu idinku nimido inay yihiin ree awowgayo inay yihiin maxaa idhahdaa tolkayo inay yihiin maskaxdii reeraan garanayo kulli waa iska garan ka dhaaraan waxaan aada ugu mahadnaqahayaa gabdhaha qurquruxda badan leh gabdha yahow nin baa waxaa la yidhi burco magaalada waxaa lagu xantaa fudayd gabarh baa loo aroosay intuu qurbaha ka yimid dabeedna gabadhiibu saa u eegay war tani waayo arooskii hablihii o dhan baa yimid tani waayo wayna cabdi cabdillaahi taasina wayna qowdha war taasina wayna war daanaba degdegay buuri horta waxaad moodaa gabdhihii reer baasaaso iyo gabdhihii maxaa idhahdaa isheega waa iska garan ka dhaha reerka inay halka fadhiyaan aadka u quruxda badnaa haddii horta anu mid baaba qabaahe waan degdegaad moodaa haddaan ogahay waan iman lahaa halkan waxa weeyaan dadka halkan waa dad aad iyo aad u wanaagsan kana mid a xagga siyaasadda haddaan la soo marina waxaad moodaa inaan waxba soconaynin nin waxaa la yidhi cumar maxamuuda iyo islaantiisii laga day marka waxaa la yidhi waryaha haadhe sacid saakuu laga day islaanta hadday 3 masale ku dhacday bu anigoo si xun u taagnaa meeshaa silixa ahayd iyo haddee duqdasan saarada taqiin bu waryaa maxaa kuu sheegay mulkiika waryaa maxaa kuu sheegay duqdasan saarada taqiin waxay rabtana waa u sahlaysay soo maaha war waxay rabtana waa u sahlahayey bu hadda waxaan leeyahay xisbiga hadday idin weydiiyaan iyo qolyahane haddee 3 masale ku dhacday u dhaha in laydinka badiyo waxaa rabtaan sheega oo siyaasada laakiin 3 masale ku dhacday xisbiga in laga badiyo waxay ku dhacday hadda meeshii oo wada la'aan meeshii oo biyo la'aan dadkii inaan dan ka lahayn intaba u sheega maasha allah waxa weeye wadaadada suufiyada reer waqooyiga yaa beri waxa weeyaan waa dhegaysan jiray wuxuu yidhi sheekh waa aad ba u qayilaan marka mid baa qayilahayo maasha allah buu leeyahay sheekhu wuxuu yidhahdo markaasuu wuxuu yidhi yoosef labi yoosef dumarkii oo dhan baa wada jeclaaday kiina wuxuu leeyahay adeerkii maasha allah markaasuu wuxuu yidhi baldankii siiradaha nabigii bay laba nin soo eryatay waa mirqaansan yahay maasha allah markaasaa faraskii nabigad ku dhacay maasha allah markaasuu wuxuu yidhi jarroosow nabigii baa god ku dhacay baan ku idhi markaasuu toosay istakfirullah horta waxa weeye mar haddii aynu wada joogno maanta waa maasha allah oo wayna lahayn kanaa u baya iyo kanaa maxaa idhahdaa caawisa iyo kanaa dabaqooniya maanta inaynu wada joogno mid nahay oo aynu isku dan nahay oo magaranaysaa oo idinla joogto meel kastana marayso
oo weliba wiilasheenii la khaldayna ay nala joogaan waa maasha allah maasha allah wixii hore iskeellooda istaqfirullah istaqfirullah waxa weeye tii u dambaysada idiin sheegahayaa si loo soo tukado xagga marka waxa weeyaan xagga salaada ayaan ku degdegaynaa nin qurbaha ka yimid yaa gabadh loo aroosay waa la tegayaa yidhi gabadha maya la tegi maysa xaa ku aroos baadiyaha ku aroos caano geel bay siiyeen marka hadda caloosha xamatay ninkii libaaxna uu ka baqanaya iyo dhurwaaye meel geeda fogeyn oo kaba kala unbu ku soo saxaroodaa marka wuxuu wataa waraaqii cadcadaasoo garan maysaane afka la iskaga bidiyo kaana wuu saaraa carruurtii waa baratay marka halka ayaa ku xaaray waraaqa cadde marka horta anagu tuulo waxba ka aroosi mahaye intaad waraaqa cadda dhihi lahaydeen ilaa tagaaqaatay xagga waxa weeyaan nin walba oo xisbiga soo gelaya annagu waanu ogolla nin waxa weeyaan aan diinta ku ficnayno reer waqooyi yaa waxaa lagu yidhi sheekhow horta caanuhu waysada ma galaan show sheekha woo bilowno markaasuu yidhi baabulabani hey buu yidhi haddaanay dhalacnayn hadday nuu kacno xagga reer xabarka wuxuu yidhi qur-aan baan macnaynayaa wadaad xabar baa lagu yarxantaaye marka wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaahi ilaahay waaye allah isagii la waaye arraxmaan isagii laha arraxiim isagii la waaye ilaa waaqacatu waaqaca dhacdo minay dhacdo waa dhacoysaaye buuri hadda waxa weeyaan oo alaf waa idinkii waaye annagu idinkii baanu nahay meel lama kala jirno qoladiina ilowna marka hal qolaa lagu xantaa laba qolaa lagu xantaa soomaalida waxoogaa jaajaalanimada qolahanaa ka dhashay waxaa la yidhi waryaahe go-ay maxaad soo raacday show booyad buu soo raacay haddii anu baabuurta ma kala aqaana yidhi kuwaa weli la xordin buu ahaa wuxuu kaloo yidhi baabuur buu soo fuulay saad lugta u saaray iyo kirishmagii qabtay maxay dhahaa leewarka wiin ayaa yidhi warma booq buu ahaa inuu damqay yaad moodaysa kolka waxa weeye nin kalena wuxuu guursaday gabadh buu guursaday xagga waqooyiga iyo meelaha barigu ka guursaday dabeedna waxay ku tiri xabiibi allahuma salli calaa maxamed buu maanta aad baad nooga farxiseen aad baanu idin salaamaynaa nin qolada raama adinka la yidhahdaa weliba hadda qarisigood yaa waxaa loo keenay intuu harar tegey yaa waxaa loo keenay maxaa dhahdaa i sheeg bun bay u keeneen bunkii bay cabbeen hoose uraagadii waxay tihi soo muslim ma tiidin ha waa sadaqa iska taga aga weliga ama sadaqa ka yar ka xidhaan baa aragtay hadda annaga maanta waxaad noo keenteen wax aan weligeedba la arag wixii maxaa dhahdaa i sheeg hore waan ku iloobaynaa maasha allah qado fiican baad noo keenteen shir weyn baad noo samayseen rag badan baa waraaqa cadda noqon doona maanta oo dibadda ka yimid waayahay wabilaahi tawfiiq waan tukanaynaa insha allah